waa maxay AirTag sideese loo isticmaalaa AirTag waa aalad yar oo track ah ama raadraac waxaadna ku dhajin kartaa waxyaabaha yaryar oo ka baqaysa inay kaalumaan sida furayaasha boorsooyinka iyo wixii lamid ah waxayna ku shaqaynaysaa bluetooth-ka waxaad ku xiraysaa iPhone-kaaga ama iPad-kaaga haddii marka boorsadii ay ku jirtay AirTag ay ku jirtay ay kaalunto waxaad ka raadraaci kartaa telefonkaaga ama iPad-kaaga haddaba labada su'aaloodna casharkan muujada ku saari doona waxa weeye sida lagu helayo iyo sida loo isticmaalo sida lagu helo aad bay u fududahay oo waxaad ka iibsan kartaa Apple Store ka iibsan kartaa meel kasto Apple Store ka furan yahay inta tagto aad ka iibsan kartaa sidoo kale online baad ka iibsan kartaa apple.com baad ka kartaa ama amazon.com baad ka iibsan kartaa sida ugu fudud lagu iibsan karo waxay tahay inaad apple.com tagto markaad apple.com tagto kadib ku dhufo iPhone kadibna listigan waxaad ka dhex raadaysaa AirTag oo halka ay ku hoos qoran tahay new ku dhufo marka boggan wuxuu ku sharaxayaa waxa AirTag ay tahay iyo sida loo isticmaalo beeceeduna waxa weeye wuxuu ka bilaabanayaa $29 marka hadda waxaan sameyn doonaa waan iibsan doonaa kadibna waxaan sida loogu xiro iPhone-kaaga wax dhan baan baran doonaa marka si aad u iibsano waxaan leenahay buy kadibna halkan waa aragtaa wuxuu ku weydiinayaa how many would you like yani meeqa xaba ayaad doonaysaa marka haddii hal xaba doonayso waa ilaa iyo $29 haddii aad doonayso afar xabana marka waa ilaa iyo $99 marka waa iska 100 shilin waxa marka raqiisan dad afar xaba iibsanayso cala xabad wuxuu kugu fadhinaya ilaa adiga $15 laakiin hal xaba iibsato $19 way marka waxaan iibin doonaa hadda afar xaba ayaan iibsanaya maadaama aan doonayo inaan maaragtay bag iyo furayaal iyo waxyaabo badan aan ku xirto afar xaba aan iibsan doonaa kadib marka waxaan ku dhufanayaa afar xaba u baahnaa marka hadda adigu doonayso hal xaba kaliya hal xaba ku dhufan kartaa marka afar xaba ku dhufanayaa kadibna halkan wuxuu isiinayaa fursad aan qoraal ugu daro yani AirTag korkiisa inaan qoraal ku sameeyo qoraalkaas oo tusaale ahaan haddii aad doonayso inaad magacaaga ku qorto si aad wax ka xasuusato marka maadaama aan afar xaba iibsanayo oo aan isku wada eg yihiin inaan maaragtay aan kala ogaado mid ay tahay ayaa wanaagsan marka waxaan ku dhufanayaa add engraving kadib halkan wuxuu siinaya fursad marka aan ku qoro waxaan u baahdo maaragtay aan ku qoro maaragtay AirTag marka waxaan haystaa afar xarfood ayaan haystaa afartaas xarfood waa inaad doorataa marka magaca hadda dooranayso waa inuusan ka badnaanin afar xaraf tusaale hadda ku siiyo aan ku dhufto 1 2 3 4 hadda iraahdo waa okay oo ku qormaya laakiin hadaan 5 ku daro wiiga diidaya waa aragtaa wuxuu ku leeyahay waa marka afar xab ahaataa marka tusaale ahaan hadaan ku siiyo afar xaraf oo la soo gaabiyay tusaale ahaan hadaan hadda galino kale Soomaali camal hadaan iraaho SOM hadaan iraaho waa saddex xaraf waa asaas iga tagtay hal xaraf baan haystaa marka maadaama waxaan qoray ay Soomaali tahay emojiga ugu fudud oo la isticmaali karo waa istaa xidigti weeye marka wakaasa waad aragtaa som iyo xidigti weeye taa marka saas number 1 ku haysataa kadib marka halkaan ku dhufanaysaa waad xasuustaa afar xabaan iibsanay marka afartooda baan marka magacyo kala duwan u sameeyay weeye tusaale ahaan haddii aad gobolada doonayso kale hadda tiraahdo maxaa la yiraahdaa sool oo kale waa afar xaraf waa laga dhigi karaa haddii aad tiraahdo gobolka geeda oo kale waa afar xaraf cayn oo kale waa laga dhigi karaa degmooyinka luuq oo kale waa laga dhigi karaa afar xaraf waaye sidoo kale magacyaha gagaaban ama magacaad soo gaabisay aad gelin kartaa tusaale ahaan hadda hani hadda tiraahdo kale waa afar xaraf ka kooban tahay waa okay marka adiga waa inaad creative noqotaa oo la timaada magac afar xaraf ah marka aniga hadda waxaan iska qaadan doonaa magacyada gobolada waa wax iska fudud oo haddii xataa lacalad u baahato inaad qof siisa xataa maaragtay aad siin karto oo yani wax shakhsiyan oo maaragtay adiga kugu kooban kaliya maaha marka haddaan iraahdo sool tan aan iraahdo geedo tan ugu dambaysan waxaan ka dhigi karnaa bari waxa inta dheer marka aan ka iloobay inaan ku daro lambar ayaad gelin kartaa tusaale hadda doonayso 2021 hadda tiraahdo waarata haysta ama sanadka daltaad gelin kartaa oo hadda dankan u riixdo waa aragtaa lambar kala duwan ba ku soo baxayo marka aniga waxaan ku deysanayaa bari baan ku deysanayaa kadibna waxaan leeyahay save halka marka waa aragtaa uu ku soo wada qabanaya marka waad ka bixin kartaa oo remove waad dhigi kartaa waad tiri kartaa daadan ku qanacsanayn editna ku sameyn kartaa waad bedeli kartaa daa u baahato kadibna hoos ayaan u baxayaa halkan waa aragtaa wuxuu leeyahay with one business day bay igu keenayaan marka hadaan maanta dalbado bari bay ii keenayaan insha Allah marka waxaan ku leeyahay add to back marka lada key ringkan waa ilaa $35 laakiin haddii aad u baahato waxaad iibsan kartaa kuwa ka raqiisan ilaa $12 oo laakiin shirkad kale ay sameeyay aysan Apple sameyn maadaama marka afar xaba haysto waxaan ku darayaa tan hal xabaan uga darayaa kana mid kale ayaan ku darayaa marka waxaan leeyahay review bag marka halkan wuxuu ku siinayaa lacagta totalka ah oo aad bixinayso marka sidoo kale waxaad haysataa free delivery iyo free return يعني taas macnaheedu yahay hadii aad marka ku qanci weyso ama maartay ay wax ka halaysan yihiin waad soo celin kartaa
sida maaragtay wadamada UK US waa okay way leeyihiin laakiin hadaa wadan kale joogto waxaa macquula marka inay maaragtay aysan free return lahayn oo maaragtay iyo doosan aysan cilad lahayn aysan ka celin doonin markasta eeg shuruudaha wadankaad joogto. Okay, kadibna hoos baan u baxayaa waxaan leeyahay check out. halka marka wuxuu ku leeyahay sign in for faster checkout, yani si aad degdeg u iibsato Google Apple ID-gaaga. sidoo kale haddii Apple ID lahayn waxaa samayn kartaa inaad maaragtay guest ahaan u gasho. marka hadda maadaama Apple ID-gaaga leeyahay kagaan gelin doonaa. kadib markaad payment-iga wax walba dhameyso waxaa kuu soo dhacaya marka rasiidkan ay kuu soo dirayaan. marka order number-kaaga waa kana, waqtiga iibsanay waa kana 26 bisha waa maanta. halkan wuxuu ku tusayaa waxyaabaha aan iibsanay oo 4 xabba ahaa. halkan waxaa ku jira marka shipment-iga meesha lagu diray. marka mar walba xaqiiji address-kaad ku qortay inuu address sax yahay. sidoo kale notification-ka wuxuu ku soo dhacaya email-kaaga. okay, marka qaybta dambe waxaan dhameystiri doonaa markay ii keenaan berri insha Allah. okay, tag markuu ku yimaado boxkan ayuu ku jiri doonaa. korna ay ugu qoran tahay tag for back. laakiin haddii aad hal xabba dalbatay boxka kan wuu ka yaraan doonaa. box yar buu noqon doonaa kor uga qornaan doonto 1. haddii aad dhanka kale u wareejiso marka waad arkaysaa serial number-kii iyo wax walba ayaa halka kugu qornaan doono. kadib si aan u furno calaamadda akhdarka ee halka hoose ayaan qabanaynaa. waad jiidaysaa marka saasaad ku furaysaa. kadibna boxka ayaad ka saaraysaa. kadibna boxka dhexdiisa waxaa ku jiri doono ayaa tag aad iibsatay. haddii aad hal xab iibsatay hal xab buu noqon doonaa. maadaama aan 4 iibsanay 4 xab ayaa ku jirto waad aragtaa. marka aniga waxaan ku bilaabi doonaa midka ugu horeeya ee Soomaali ku qoran tahay kaasaan setup gareyn doonaa marka si aad u setup gareyso waxaad u baahan tahay inaad maaragtay iPhone-kaaga aad ku xirto ama iPad midkaad u baahan tahay aad ku xiri kartaa. marka hadda waxaan ku xiri doonaa iPhone-ka aan wareegno marka iPhone-ka. marka u horeyso si aad ugu xirto telefoonkaaga ka saar plastic ku wareegsan ee taaga. kadibna waxaad maqli doontaa dhawaaq kan lamid ah. kadib telefoonkaaga fur xasuusnoona inuu Bluetooth-ka on ahaado. tag waxay ku shaqeynaysaa Bluetooth. marka Bluetooth waa inuu on ku ahaada oo darnaada. kadibna isbarbar dhig telefoonka iyo tagga. kadibna telefoonku wuu soo qaban doonaa tagga sida hadda ku muuqato kale oo halka way ku qornaan doontaa tag. kadibna waxaad ku dhufanaysaa connect. kadibna wuxuu ku weydiin doonaa inaad doorato waxa aad doonayso inaad ku xirto. tusaale ahaan hadaad bag ku xirayso, hadaad headphone ku xirayso. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo badanaa lagu xiro waxaa weeye oo dadka badanaa ka lumo waa furayaasha. marka aniga hadda waxaan ku xiran doonaa furaha. waxaan dooranayaa keys. kadibna setup ayuu sameynayaa Apple ID-gayga iyo wuxuu isku xirayaa tagga si yani aan halkaas notification-ka wax walba ugu maamulo. kadibna aragtaa magacayga halka hoose ku qoran yahay iyo furihii. halkan buluga marka waxaa aragtaa kaaga muuqda with you. maadaama hadda tag ila yaalo wuxuu leeyahay with you. okay, haddana waxaan tijaabin doonaa sida loo raad raaco markuu shay ka lumo shaygaas oo tag ku xirnaa. si aad marka raad raac u sameyso waxaad u baahan tahay inaad find my-ga furto. find my-ga furaysaa. marka si aan tag u raadino waxaan ku dhufanaynaa items. marka items ku dhufato waxa ku soo baxay itemyada ama maaragtay aaladaha kugu jira halkan. waa aragtaa marka waxa ugu horeeya hal item bas ay ugu jiro. halka item oo ah keys Ahmed key. haddii marka uusan furaha ii muuqan waxaan ku dhufan karaa play sound oo uu dhawaaqaya marka sidaan oo kale. marka aan tijaabino marka sida loo raad raaco. marka si aan u raad raacno oo meeshu yaalo aan aragno waxaan ku dhufanayaa find. kadibna waad aragtaa inta mitir oo uu jiro ayuu sheegayaa. kadibna wuxuu ku leeyahay way connected weeye oo taggu telefoonku ku xiraya laakiin signalka waa weak oo maxaa yeelay waan ka fogaaday. haddii marka aan ku soo dhawaado wii hagaya marka wuxuu leeyahay dhanka bidix u leexo. waa aragtaa midig u leexo. markaad aragtay shaashada dhanba maaragtay cagaar noqotay ama ay noqotay akhdar taasaad maaragtay raacaysaa. lambarku sii jiray waad aragtaa 1.8 1.9 1.5 ahead waa aragtaa waa soo dhawaaday 0.4 0.3 0.2 markaan kor saaro waa aragtaa hiya buu ku leeyahay marka yani waad haysaa weeye. marka furihii iyo tag waan hayaa. marka hadduu shay kaa lumo boorsa ha noqoto maxaa la yidhahdaa waalidkaagi ha noqdo haddii taggan ay ku jirtay saasa u baari kartood u raadin kartaa. sidaasna waxaad ku baratay sida loo isticmaalo tag. fadlan haddii aad wax su'aalaha qabto ama ay jiraan waxyaabo dheeraada oo doonaysa inaad ogaato fadlan commentiga inoogu reeb.